Waxay xildhibaanada ku heysiin xoghayaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidii ay u weerareen. Maxaase lagu haystaa? Maxaase ka ogtahay muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa. Ila soco aynu ku bilownay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo xoghayaha guud ee golaha shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Jaabir ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf xooggan oo ku aadan maareynta howlaha baarlamaanka. Khilaafkan ayaa haddii si xooggan loo dareemay kadib markii uu buuq ka dhex dhacay kulankii golaha shacabka ee shalay, kaasoo ku aadan in xildhibaanada ay hadalka u diideen xoghayaha guud ee golahaasi Cabdiraxmaan Jaabir oo iska fariistay markii dambe. Muxuu salka ku hayaa khilaafka soo kala dhexgalay xildhibaanada iyo xoghayaha baarlamaanka federaalka? Xildhibaan Mukhtaar Axmed Saajid oo ka mid ah xildhibaanada ay hayaan Jaabir ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaalaha ay isku hayaan ee keenay khilaafkooda. Saajid ayaa shaaciyay in xoghayaha uu qaaday tallaabooyin ka dhan ah xildhibaanada, isaga oo tilmaamay in guuxiisa uu ka dheereeyay sida uu hadalka u dhigay. Xoghayaha guuxiisa ayuu ka dheereeyay, waa xoghaye, waan ixtiraameynaa, sharaf ayuu leeyahay, laakiin looguma talagelin inuu ku dhago xildhibaanada oo arrimahooda soo gudagalo, ayuu yidhi xildhibaan Mukhtaar Axmed Saajid oo la hadlay wariyaasha Muqdisho. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xeer-hoosaadka golaha, isla markaana uu xildhibaano badan ka hor istaagay inay ka hadlaan baarlamaanka. Mideeda kale waxa uu ku xadgudbay xeer-hoosaadka, gaar ahaan qodobka 87 farqadiisa labaad. Wuxuu leeyahay xildhibaanka codsada ee gacanta taagta ayaa la siinayaa hadalka. Isaga warqad ayuu samaystay, wuxuu yidhi safkan ku soco. Wiilashii wax qorayay mid ka mid ah ayaa maanta wuxuu igu yidhi waan ogahay in arrintan ay khalad ku tahay xeer-hoosaadka, laakiin xoghayaha ayaa wuxuu igu yidhi halkaasi ka soco, ayuu sii raaciyay. Waxaa kale oo uu ku sii daray, waxaan haynaa isagoo dhahayo xildhibaano hadlayo hadalkiyaa siiyey oo guddoonka leeyahay, xaq miyuu u leeyahay idinkaan weydiinayaa. Ugu dambeyn wuxuuse ka xariiqay inaysan xoghayaha ku haysan arrin shakhsi ah, balse ay tahay shaqada inuu ka soo tallaabay xadkiisa, sida uu ku dooday xildhibaanku. Annaga khaladkaasi aan ka hadlaynay ee xoghaye ahaan iyo shakhsi ahaan uma haysan, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay. Xildhibaanada ayaa si weyn u weeraray xoghayaha Cabdiraxmaan Jaabir, iyagoo sheegay inuu ka dheereeyay guuxiisa, shaqadii loo igmadayna uu ka soo tallaabay, xildhibaanadana uu kontaroolayo, halka kuwo kalena uu u diiday inay hadlaan, qaarka kalena uu aamusiinayaba. Xildhibaan Saajid ayaa waxa uu sheegay in khilaaf weyn ay ka dhex taagan tahay golaha, maadaama xoghayaha uu ka soo tallaabsaday xadkiisa, sidoo kalena uu guuxiisa ka dheereeyay. Waxa uu sheegay inay ixtiraamayaan xoghayaha, sharafna uu leeyahay, sidoo kalena aysan marnaba weerar ku qaadin isagoo khalad sameyn, balse haatanna waxa uu soo galay xildhibaanada oo arrimahooda ayuu soo gudagalay. Taasina waxaa loo baahan yahay inuu ka waantoobo, marnabana uu ka keenin ficiladaasi, ayuu sii raaciyay xildhibaan Axmed Saajid. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku xadgudbay xeer-hoosaadka u yaalaha, isla markaana uu xildhibaano badan ka hor istaagay inay ka hadlaan baarlamaanka. Waxa uuna sheegay inaysan marnaba aqbalin in xoghayaha uu ku xadgudbo xeer-hoosaadka u yaala golaha, sida hadda koorba uu ku kacay. Haatanna loo baahan yahay inuu khaladkiisa qirto, raaligelin uu ka bixiyo dhammaan xildhibaanadaasi oo ka hor istaagay inay hadlaan, afkaartoodana ay ka dhiibtaan. Xildhibaanada ku heysiin xoghayaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidii ay u weerareen. Maxaase lagu haystaa? Maxaase ka ogtahay muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa. Ila soco aynu ku bilownay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo xoghayaha guud ee golaha shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Jaabir ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf xooggan oo ku aadan maareynta howlaha baarlamaanka. Khilaafkan ayaa haddii si xooggan loo dareemay kadib markii uu buuq ka dhex dhacay kulankii golaha shacabka ee shalay, kaasoo ku aadan in xildhibaanada ay hadalka u diideen xoghayaha guud ee golahaasi
cabdiraxmaan jaabir oo iska fariistay markii dambe. Muxuu salka ku hayaa khilaafka soo kala dhexgalay xildhibaanada iyo xogayaha baarlamaanka federaalka? Xildhibaan Mukhtaar Axmed Saajid oo ka mid ah xildhibaanada Hiisayaan Jaabir ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaalaha ay isku hayaan ee keenay khilaafkooda. Saajid ayaa shaaciyay in xogayaha uu qaaday tallaabooyin ka dhan ah xildhibaanada, isaga oo tilmaamay in guuxiisa uu ka dheereeyay sida uu hadalka u dhigay. Xogayaha guuxiisa ayuu ka dheereeyay, waa xoghaye, waan ixtiraameynaa, sharaf ayuu leeyahay, laakiin looguma talagelin inuu ku dhago xildhibaanada oo arrimahooda soo gudagalo, ayuu yidhi xildhibaan Mukhtaar Axmed Saajid oo la hadlay wariyaasha Muqdisho. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xeer-hoosaadka golaha, isla markaana uu xildhibaano badan ka hor istaagay inay ka hadlaan baarlamaanka. Mideeda kale waxa uu ku xadgudbay xeer-hoosaadka, gaar ahaan qodobka 87 farqadiisa 2. Wuxuu leeyahay xildhibaanka codsada ee gacanta taagta ayaa la siinayaa hadalka. Isaga warqad ayuu samaystay, wuxuu yidhi safkan ku soco. Wiilashii wax qorayay mid ka mid ah ayaa maanta wuxuu igu yidhi waan ogahay in arrintan ay khalad ku tahay xeer-hoosaadka, laakiin xogayaha ayaa wuxuu igu yidhi halkaasi ka soco, ayuu sii raaciyay. Waxaa kale oo uu ku sii daray, waxaan haynaa isagoo dhahayo xildhibaano hadlayo hadalkiyaa siiyey oo uu guddoonka leeyahay, xaq miyuu u leeyahay idinkaan weydiinayaa. Ugu dambeyn wuxuuse ka xariiqay inaysan xogayaha ku haysan arrin shakhsi ah, balse ay tahay shaqada inuu ka soo tallaabay xadkiisa, sida uu ku dooday xildhibaanku. Annaga khaladkaasi aan ka hadlaynay ee xoghaye ahaan iyo shakhsi ahaan uma haysan, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay. Daba xildhibaanada ayaa si weyn u weeraray xogayaha Cabdiraxmaan Jaabir, iyagoo sheegay inuu ka dheereeyay guuxiisa, shaqadii loo igmadayna uu ka soo tallaabay, xildhibaanadana uu kontaroolayo, halka kuwa kalena uu u diiday inay hadlaan, qaarka kalena uu aamusiinayaba. Xildhibaan Saajid ayaa waxa uu sheegay in khilaaf weyn ay ka dhex taagan tahay golaha, maadaama xogayaha uu ka soo tallaabsaday xadkiisa, sidoo kalena uu guuxiisa ka dheereeyay. Waxa uu sheegay inay ixtiraamayaan xogayaha, sharafna uu leeyahay, sidoo kalena aysan marnaba weerar ku qaadin isagoo khalad sameyn, balse haatan waxa uu soo galay xildhibaanada oo arrimahooda ayuu soo gudagalay. Taasina waxaa loo baahan yahay inuu ka waantoobo, marnabana uu ka keenin ficiladaasi, ayuu sii raaciyay xildhibaan Axmed Saajid. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku xadgudbay xeer-hoosaadka u yaalaha, isla markaana uu xildhibaano badan ka hor istaagay inay ka hadlaan baarlamaanka. Waxa uuna sheegay inaysan marnaba aqbalin in xogayaha uu ku xadgudbo xeer-hoosaadka u yaala golaha, sida hadda koorba uu ku kacay. Haatana loo baahan yahay inuu khaladkiisa qirto, raaligelin uu ka bixiyo dhammaan xildhibaanadaasi oo ka hor istaagay inay hadlaan, afkaartoodana ay ka dhiibtaan.